من كانت الدنيا همه جعله الله فقر بين عينيه وفرق شمله ولم يأته الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جعله الله غناه في قلبه وجمع الله شمله وأتته الدنيا وهي راغبة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رسول قال له حليه من كانت الدنيا نك هميسا الدنيا كدغ الدنيا، من كانت الدنيا همه وهميسا رجديسا نلوشيسا oo dhan adduunyo ku xidha aakhirada iska ilooba wax u soo toosay wax u soo jeed adduunyo ka dhiga niyadiisa noloshiisa mustaqbalkiisa oo dhan adduunyo ku xidha aakhirada iska ilooba amalka ilaahay ka taga sunnada nabiga ka taga labada andhood baa ilaahay faqriga u saaraa sida adduunyo u daba cararay arrimihiisana bariya galbeed baa ilaahay ku kala saydha. ولم يأته الدنيا إلا ما كتب له النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ما بها لما أنتو إلهي وقري مويان. ومن كانت الآخرة نيته وفك آخرة كدقة آخر نيدي سكدقة نيدي سآخرة وجيدية الدنيا دو كشق يسنة يمدي بكا تغيو لكن همي سريدي سيدان آخرة وبد بدا ماذا أقدم أمام الله تبارك وتعالى وكفكر إياه محال الله الله ارتقيا maxaa iga horeeya ayuu noloshiisa dhan ka fakaraya. jamaca Allahu shamlahu ilaahay baa arrimihiisa isugu hururiya waja'alahu Allahu ghinaahu fi qalbihi qalbigana ilaahay hodantinimo iyo deeqtoonaan baa waba dharagsan yahay waxa ma haysaadu rabo laakiin qalbigu hodan ka yahay. waatatu dunya wa hiya raaqiba bu nabiga sallallahu alayhi wasallam adduunyadana waxa u timaada iyada sudulaysa. man kana yuridu al-harth al-akhirati nazid lahu fi harthihi ba ilaahay ninka adduunyada doona adduunyada wuxuu doona ma ka siinayna laakiin ninka maartay nasiibna kuma yeelanaya aakhiro. barakallahu fiikum jazaakum Allah. adduunyada waa maalmo yar magaceeda waxa la yiraahdaa afaaniya dunya afaaniya adduunyada waa gaaban tahay mataacuha qaliil waa qaliil oo mataacu ku tilmaamay sihhatuha qaliil caafimaadkeedu waa yar yahay ya laanaha hiya qaliil waa daar dhamaanayso dagayso dhamaanayso. يا إنهم يرونه بعيدا ونراه غريبا با إلهي دتك وحي مودي أنا آخرين فقتهي لكن آخره ويدو ذهي با إلهي جل جلاله. سادرت والله لي على الدنيا ما المها يرنجومه إنهم حدوني على كسها يقاذرنه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى با إلهي ورسخوا السهيدة قال سهيدة قاذنا يو صوصها يقاطع وإلهي أصو حقي أصو يقاطع. نبي الله محمد عليه السلام